wanaagsan daawadayaal halkani waa TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka ee TV-ga Shabeelle alaaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadnaa mowduuc aynu u aragno in uu bulshada Soomaaliyeed muhiim u yahay dhaxal reebna uu yahay da'yarta waxbarata oo aan inta badan ku xasuuno barnaamijka dhakhtar aan u aragno markaasi in uu ku habboon yahay bulshada inuu la hadlo dhaqaatiirta la hadasha barnaamijkana waxay inta badan diiradda ku saaraan sidii ay bulshada u gudbi lahaayeen wax markaasi waxtar u leh waxna ay ka faa'iideyaan barnaamijka waxaynu maanta ku eegi doonaa haddii uu eber ka noqdo maadaama aynu ku jirno bil Ramadaan bal bulshada Ramadaanka iyo afurka siday u afuraan iyo xanuunada markaasi inta badan saameeya qofka sooman ayaanu barnaamijka diiradda ku saari doonaa waxaana barnaamijka marti igu ah daawadayaal Dr. Xuseen Cabdicasiis Cabdulqaadir oo bulshada inta badan ay u taqaano Fadxi oo ah General Medicine iyo Surgery waa dabcan daaweynta guud iyo qalliimada guud ahna agaasimaha guud ee isbitaalka Soomaali Syrian barnaamijka ayuu marti igu yahay daawadayaal barnaamijka waxa soo saaray halkan ay kaga tibin doono intuu hawada ku jiro anigu Maxamed Cabdulaahi ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka caafimaadka ee TV-ga Shabeelle دكتور كسودو برنامج عافمات كتيفي شوالي هذا ما سنتهي وكله هي وأنا هاد علنا بهذا تيفي شوالي برنامج هذا حلقالك وقبل الشدة ورنتي مربع وحكوها بونا يوسف حليان رنتي ضد قبرة أوله إن لو حل ساران دريمينا ما دام مر البوحة تاجا واقعي بالشدة وباهنتاي وصل حلايو وانا إذا كم هاد علنا هذه التيم كذا محمد وما سنتهي دكتور waxaan rabnaa inaan diiradda saarno oo aan ka hadalno qofkii marka uu soomayo yahay sidoo sooma wuxuu dareemayaa xanuuno kala duwan ha noqoto sonkorti ha noqoto gaaski ha noqoto dhiig karki ha noqoto cudurro badan uu dareemayaa culaysyo badan way jiraan marka bal maanta waxaan rabnaa inaan dul istaagno oo aan bulshada la hadalno in ugu horeyn marka bal soonka iyo xanuunadaasi xiriirka ka dhaxeeya muxuu yahay aad u mahadsan tahay soonka waa wax Ilaahay jideeyay qof kasta oo muslim ah laga rabo waxaana jiro xanuuno badan oo ay dadku la nool yihiin xilliyada soonka iyo xilliyada aan soonka ahaynba kuwaasoo loo yaqaan chronic diseases dadka Soomaaliyeed intooda badanna ay qabaan waxaad arkaysaa qofkii da'da yaraa inuu ka cabanayo gaas iyo waxyaabo la xiriiro waxaad arkaysaa inuu ka cabanayo waxyaabo la xiriiro dheefshiidkii dadka da'da ahay oo kaleento inay ka cabanayaan sokorti dhiig karki kolestaroolka ama dhiig subagii ama dufanki wax loo yaqaano mashaakilaadkaas tirada badan iyo sidii qof walba cudurkaas asigoo qabo uu soonkii uu soomi lahay isla mar ahaantaasina uu wax dhibaato kala kulmi lahayn horta soonku wax dhibaato lagama kulmo laakiin qofka ayaa wuxuu abuuri karaa habkii uu soonka dhibaatada ogala kulmi lahay haddii aad sokor qabto oo wax sokorta kicinay aad isticmaasho soonka kuma dhibine adiga waxaad isticmaashay wax jirkaada uu diidayo u daran ha marka waxaan rabnaa wadada si la haysiin lahay inaan mar walba ka hadalno waayo soomka maadaama oo Ilaahay u jideeyay umada adoomanka Ilaahay asaa nooga aqoon badan waxa u jideeyay inay khayr u tahay ayaan ihtimaalayna dhaqaatiirtuna isku raacsan yihiin marka qofka sooma oo waajibkii Ilaahay saaru gudanay asaga xanuunada soo wajahaya saameyn inta leey ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay qofka sooman waxa soo wajihi karo xanuunada hore uu qabay ama kuwa ku soo booday ha ahaadaano waayo xilliyada qofka uu soomay haddii uu sida aan ka soo hadalnay dhiig kar uu qabo oo cusbo uu isticmaalo isla markaantaas pressurekiisa uu kacaya haddii qofkii uu qabo gas waxyaabo acid iyo waxyaabo noocaas oo kale uu isticmaalo sidoo kale tar way kacaysaa marka soonku waxa loo baahan yahay qofka cudurka uu qabo inuu iska ilaaliyo haddaad sokor qabto maxaa iska ilaalinaysaa sokor haddaad qabto waxaad u baahan tahay inaad ka fogaato bariiskii baastadii waxaad u baahan tahay inaad ka fogaato sokortii caadiga ahayd cabitaanka lagu qasaa shaahiya lagu karinayaa waxaa arkaysaa mararka qaar burka in wax yar lagu daraayo
waxaa arkaysa in cunooyinka noocyadooda kala duwan lagu yara macaanina marka haddaad sokor qabto wax kasta oo sokor marka hore lagu soo diyaariyey wax kasta oo gadaalnimo looga daray markii la diyaarinayaba inaad iska ilaaliso ama tusaale ahaan bariiska sokor badanaa ku jirto baastada sokor badanaa ku jirto waxaasoo dhan waa qofka inuu iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay danna qofka markuu afuro iyo markuu suxuranayo sokortiisa uu cabiro si uu ogaado isbedelka cuntadaas uu cunay sokortiisa saameynta ay ku yeelatay waayo markay sokortaada kacsan tahay oon badan aad yeelani ma soomi karti haddaad bariis iyo baasto ku suxurato waayo sokorta waxay leedahay oon badan ay leedahay oon badan hadday leedahay biyo ma cabi karto waad sooman tahay adigana waxaad isticmaashay wax sokortii sii kicinaya sokortaadii oo kacsan iyo haddana wax sokortii sii kicinaya isticmaashay marka dhibaato badan ay kuu geysanaysaa qofka sokortiisa ay dhacdo muxuu kaga duwan yahay midka ay sokortiisu kacdo aadaad u mahadsan tahay marka qofka starvation uu galo sokorta waxaa jirkaada caadiga isticmaalayaa laga sameeyaa marka qofka uu muddo baahan yahay dadka qaar sokortooda way dhacdaa waa dadka ugu daran oo u baahan emergency care waayo sokorta haddii hypoglycemia ay noqoto ay koos marta 60 waxaa laga yaabaa qofkaas brain damage inay u geysato maskaxdiiba ay dhimato qofkaas dareenkiisii uu saas ku tago xusuustiisii dhammeed maskaxdii dhammeed ay wax kala maamuleysay yaa waxaa ku dhacayo hypoxemic brain disease wax loo yaqaan markii hypoxemia markay dhacdo oo sokorta waxa ugu badan ee wareejiyo waxa waaye glucose jirka gaarsiiyo haddii marka la waayo glucose-kaas jirkii waxaa ku dhacayo hypoglycemic kaas waxay dhibaato u geysanaysaa maskaxdii hypo wax markay yaraadaan waay sokortii yaraatay ayaa waxay u geysanaysaa maskaxdii inay dhimato marka brain disease baa duu jiro qofkaasi xasuus iyo wixii maskaxda laga rabo dhan ay meesha ka baxayso khatar nololeed wuxuu geli karaa aad u tiro badan marka dhicidda iyo kiciddu waxa roon kicidda waayo kicidda ilaa waxay gaari kartaa 700 qofka tartiib baa loo soo dejin karaa laakiin meeshaan sida caadiga sokorta loogu talagalay waa inay 125 ay ka yaraato qofku ku baahan yahay 125 sida caadiga ilaa 80 ay u dhaxayso inta badan 100 ilaa intaas lagu celceliyaa marka haddii ay koos marto 90 ama ay koos marto sokortaas qofkaas waxaan leenahay khatar badan ama u keentaa haddii 60 ay koos martana kuma sii jirto maskaxdan ka soo cabsanayna marka cudurrada qofku oo qabo ama ku dhaca inta uu sooman yahay cudurka ugu halista badan waa sokorta soo طبعا ولا dhihi karaa kuma dhacaane qofka cudurku hore wala la noolay ha laakiin dhibaatada ugu badan because abarkan in laga ilaaliyo la rabaa kor u kac lowerkan in laga ilaaliyo la rabaa hoos u dhac marka waa jadwalka ugu adag ee qofku u baahan yahay inuu dhakhtar ama barnaamijkan shabeello kale inuu helo si guide iyo wax uu uga faa'iido way sokortada haday badan tahay dhakhtarkaad u tagaysaa daawo wuxuu ku siinayaa sokortaas badan jirka ku maarayso si soonkaada ugu dhibtoonin oo oon badan iyo rafaad badan aadan u dareemin haddii inay dhacdaad ka yaabto oo maskaxdaada inay intay disho oo brandis ay keentay hypoglycemic gas ayadana dhakhtarka kaala talaa wuxuu ku leeyahay kaniini ma qaadan kartid 120 qof kaniini sokor ma qaadan karo marka dadkina waliga qaado dhakhtarka ku yiri marka isfaham darri meesha iska marka dib ugu noqotid dhakhtarkii absolutely aad waa gartay qofka marka maxaa cunayaa cunooyina maadaama sokortii liiri briskii iyo baastadii iyo wixii oo dhanba waa waxa laga qaadaya sokorta ama ay kicinaysaa sokortii waxa cunaya qofka sokorta qabo qofka sokorta qabo wuxuu isticmaalayaa masago baashan yar yarta oo galeyda iyo isticmaalayaa qof walbana waxay ku xiran tahay xaalad dad waxa jira sokor qabo sokortooda ay sabab kicinba sax haday baasta iyo bris isticmaalaan xitaa oo markay xanaaqaan oo kale ay kacdaan marka waxay ku xiran tahay xaaladda uu qofka markaas ku sugan yahay qof stress badan oo sokortiisa ay dagaynin wuxuu u baahan yahay dhakhtar la tashto daawada nooca la siinayo miligaraamka laga siinayo cuntada nooc uu ka qaadan lahay marka qof walba sokor qabo inuu khatartaas ku jira ma laakiin qof stresskiisa badan yahay sokortiisa ay kacsan tahay asoo ay kacsan tahay haduu bariis iyo baasta sii qaata ka war way sii kacaysaa marka qof dadkaas oo kale waa dadka aan diiradda saarnay iyo dadka inta badan sokortooda iska dhacdo haday sokortaada inta badan dhacdo waxaad u baahan tahay inaad bariis iyo baasta qaadato markii sokortooda ay mar walba dhacdo mugta si ay hadhowto bariis iyo baasta saaka aad qaadato ilaa xad ay u yara keekaysato ay wax oga babaxdo marka daaweynta ugu badan ee sonkorta ay heshaa waa consultant doctor soo absolutely dietary consultation is very important hada barnaamijkan aad shabeel aad fursad ay siiseen waxa laga yaabaa soonka dhan hadaan dad sonkorta qabo bas aan qaabila inaan fariintan oo kale aan gaarsiin karin laakiin maanta aad fursad ay siiseen dhowrka milyan ee luqadda Soomaaliga ku hadlaysa iyo dad kale intoo aanan u dhalno luqadda laftirkeeda wax ka fahmayo inaan maanta aan fariintan la wadaago marka waa wax
wacyigelin ama dietary consultation is very important for the saving of the, like that cases oo kale waay. waa gartay marka sokortii waxay u baahan tahay in dhakhtarkii mar walba lagu xirnaado si uu talo u siiyo qofkii. waan gartay qofka markuu sooman yahay maadaama qofka waxa difaaca ay tahay immuunkiisa ama difaaca jirka haddii uu qofku sooman yahay wax ka badan 14 saacadood difaaca jirkiisa hoos muu dhaci karaa? aadaad u mahadsan tahay. qofku marka lagu leeyahay wuu sooman yahay ma macnaheedu inuu wada baahan yahay. inta aad qaadanayso waxaad qaadataa habeenkii. marka xilliyada soonka lagu jiro waa muhiim waxyaabaha difaaca kordhinaya inuu qaato. laakiin saameyn gaar ah oo soonka uu geysanayo ma jirto haddii markaad afurayso qudaar fiican aad qaadato oo vitamins fiican aad qaadato oo cunno isu dheelitiran aad qaadato difaaca soonkaada waxa uma dhimayo. laakiin mushkiladda annaga Soomaaliya haysta waxaa waaye waxaan jecelnahay saxan bariis ah oo dry ah macnaha aan lahayn qudaar fiican inaan qaado. qofka weel yar wax lagu keenaa qudaarta absolutely weel yar wax lagu keenaa qudaarta waa la celinaa saxanka bariiskaana waa la dhameeyay. macnaha waxaan ku dadaalnaa waxyaabaha energy-ga laga helo qudaarta la cuni lahaa absolutely ayaa cunooyinkii energy-ga lagu dadaalay absolutely. marka waxaan dhihi lahay dadku si ay wax walba isugu balanced u ahaadaan cunooyinkan qudaarta cagaaran iyo difaaca kordhiyo aadka ha loo isticmaalo caafimaadkana way ka qayb qaataan. marka kuwaasaan aad u boorin lahay anaga dhaqankeena wax haleynaya ma ahane soonka inuu haleynaya ma aha. waa gartay dad badan waxaa jira ramadaanka wax badan ay iskaga yaraa qaldan yihiin sidii ay u afur lahaayeen iyagoo ilaalinaya caafimaadkooda. laba doctor waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto fursadan qofka qaba qumankii biyo qabowna ku bilaabay afurkii halkaa maxaa ka dhalan kara? aadaad u mahadsan tahay. tonsillitis-ka ama qumanka wax Soomaalida u taqaano aad uu inoogu badan yahay khaasatan dadkeena caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn jooga because of barafkii iyo wixii aflaad sac lagu dhex jiraa. haddana soon haddii la gaaro qofka maada oo dhan u oonaayo waa kulul yahay wuxuu rabaa wuxuu isku qaboojiyo. marka dhibaato badan ayuu kala kulmi karaa. qof baalkii burkitada iyo qabowga dhan dad uu dhibayo dad xasaasiyad ku qabaa jiro burkitada qumanka kaliya ma marka dadkaasoo kaleento qabowgu maadaama ay dhibayaan inay iska yareeyaan baan kula talin lahayn si ma garanaysa aysan dhibaato kale oo caafimaad aysan u soo wajihin maadaama qabowgan uu dhibayo. khayrul umuri awsatuha marka wax walba waxa u fiican qabow zaa'idna yaan laga dhigin. kuleelkii sidii biyo caadiga ay ahaayeen yaan laga dhigin. marka xogow afartii xitaa qofka u dhaxgeliya haduu rabo laakiin khayrul umuri awsatuha wax walba waxa u fiican dhexdhexaadkooda. waa gartay ayaga ka waran marka kaliyihii ka waran maadaama halka qofka bini'aadamka ah jirkiisa oo inta ugu badan ka shaqeeya ay tahay qofkii asagoo maanta dhan baahanay haddii uu cabo maaragtay biyo qabow bal kaliyihiisii dhibaato intee laga gaarsiinaysaa? aadaad u mahadsan tahay. biyaha keliyaha waa meelaha ugu muhiimsan target pointigooda. qofka waxaa la rabaa hab nidaam ah inuu biyaha u cabo waxaana laga rabaa 3 litir oo biyo inuu cabo 24 saac. marka soon maadaama la galay bulshada dhibaato waxaa jirto biyihii la iska dharjinaa saxan bariis laga daba geynaa ama saxan baasta calooshii full of ay noqonaysaa. nabigeena kaleey salaatu salaam waa tuu yiri calooshii 3 loo qaybiyo qayb biyo ah qayb hawo iyo qayb cunto ah. marka waxaad dareemaysaa doorka ay siisay diinteenu biyaha mid lamid ah dhakhaatiirtuna inay siiyeen ilaa wax walba asal waxa waa diinta. marka in bulshadu aysan biyaha over aysan ku noqonin maadaama jirkii uu energy kale uga baahan yahay waxaa sunnah qofka inuu 3 xabo timir ilaa 5 xabo هذا ترى وترى أنت بدل إسدار إنه أفرك كوبلاوضو على الصناعة سجركي إنرجي وعجاه له ما دام تمرت وحقوق بدل إنرجي على جاهله أي تاي مركا إن ستيب كاس لوجو تلقى له أفرو على يرو بيو جاكسيو على يرو أفرك لابا مرة توقع قاطو وصلاة السيد كنتو كذا then أنت يرتو صلاة تكره إسبيسا كوجرو على شيء تعبيك على نظامين إسها مركا أفرك النظام كاس إنه أهل يعني عاد لو أبرشيد كرينا يا سيد الدين تنبع أي نفريس. وقرت الدكتور حسين كوجودي برنامج كسوق قارني حد dadkiina maaragtay dheefshiidkoodii dad baa waxaa jira inay cunaan cunadii iska badiyaan saacado kadib soo daacanaya ama bariyo kale soo daacanaya bal gabagabadii aad isku soo xiray tala dadkaasi lahayd maxaad oran lahayd? in aad u mahadsan tahay fursadda qaaliga ee siisay saaxiibkay maxamed oo kaaga mahad celinaya adiga iyo baahda Shabeelle TV ba
dadku waxaan leeyahay cunada weyga ugu habboon ee loogu talagalay haddaad ka saarto dhibaatay kuu geysanaysaa. tusaale ahaan shaah haddii sokorta laga badiyo ma cabi karaysid. qofka sokorta ugu jecel laftarkiisa haddii meesha ugu dambaysa sokor la gaarsiiyo sokor badan lagu daro ma cabi karaysid. marka waxaan kula talin lahay in wax walba in laga badiyo inaysan horta faa'iidaysa ku lahayn. saddexda qayb oo diinta ina fartay in loo qaybiyo calooshu oo markaasi daacadan iyo waxyaabaan imaanayaba aysan imaan lahayn. haddii aad isku aragto mushkilad dheefshiidaa jirto, gaasaa jiro, waxyaabo kalaa jiro, dhakhtar la xiriir. laakiin marka hore isku day inaad adiga cuntadaadii aad saxdo. midda kale mushkiladan haysato waxay tahay cuno badanaa la cunaa, biyo badan lama cabaayo. cuntada makiinada waxay u baahan tahay waxay ku shiido. marka in habeenkii biyo badan la cabo fiidka hore waliba intaan la seexan, because marka la seexanayo jirkaadii uu jiifaa inta badan waxa laga yaabaa dhaqaaq badan ka socon. marka inta saxuurta inta laga gaarayo taraawiixda iyo afurka biyaha qofka ha u laalaabto hal marna ayaa laga buuxin calooshii. socod fiican ha la sameeyo. taraawiixda laftirkeeda waxa ku jirto xikmo waxa dadka loo faray in ay taraawiixda dukadaan in space meeshii calooshii energy jirkii intuu isticmaalo laga helo. marka waxa kaloo dadka dhiig karka qabo waxaan leeyahay cusbada iska yareeya. qudaartii lagu daraaya, raashinka lagu daraaya, dadkii lagu dhex daraaya. dadka dhiig karka qabo dadka khatarta ugu badan ay soo wajahdo ayagana. marka si aad khatartaas uga badbaadaan iska yareeya cusbada, iska yareeya waxyaabaha stresska ah. dadka sokorta qabana taas way ka siman yihiin. dadka gaaska qabo iska ilaaliya waxyaabaha aashitada leh ayaga laftirkooda. dadka kolestaroolka qabo waxay la aaminsan yihiin Soomaalidu soonka aad la isu nafaqeeya. marka duxdana aad ay u aaminsan tahay. haddii aad kolestarool qabto ama haddii aad cayilan tahay xitaa waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad ka fogaataan wax kasta oo dufanka ah. haddii aad cayilanto xitaa aadan qabin kolestarool xitaa high risk aad u tahay. haddii hooyo aabe ay qabaan high risk aad u tahay. waxaasoo dhan waxaan kula talinaynaa inay iska ilaaliyaan. waa mahadsan tahay. wuxuu ahaa Dr. Xuseen Cabdicasiis Cabdulqaadir oo ku magac dheer Fadxi oo martay uga barnaamijka caafimaadka TV-ga Shabeelle. waa kaga mahad celinaa doctorka waqtigiisa waana uu siiyay. barnaamijka daawadayaal waxaa idin soo saaray halkan ay kala socodsiinayaan aniga Maxamed Cabdullaahi. tan iyo barnaamijkan xigeen intaan kulmi doono nabadgelyo.